ديدي 8 دور 5 8 دور شدال عقال وارك أنا قاري ما ودنا بتاج له ودناي waa sax shidaalka anaga weli qiimihiisu taagan yahay dhibaato aad u weyn aan ku qabnaa marka sheeg waxaa laga rabaa midaas anaga ma ahan dawladda inay ka hadasho ee tiraha ganacsatada la hadasho oo qiimo dhimis sameeyo ee dhahdo sicir barar xooggan oo qiimaha shidaalka ayaa weli ka jira suuqyada magaalada Muqdisho iyo guud ahaan wadanka xilli hoos u dhac weyn uu ku yimid qiimaha shidaalka caalamka kadib heshiiskii 17kii bishan Juun ay wada gaareen dawladaha Mareykanka iyo Iran waxa si ku meel gaar ah dib loogu furay marin biyoodka istiraatiijiga ee Hormuz waxaana si weyn taasi hoos ay ugu dhigtay qiimaha shidaalka caalamka iyada oo wadamo badan oo caalamka ay heleen saay shidaal oo aad u badan 10 maalin kadib heshiiskaas marka la saxay Soomaaliya weli waxa ka jira sicir barar qiimaha shidaalka waxaana ganacsatadu ay shidaalka iibinayaan qiimihii hore qaar ka mid ah darawallada gaadiidka mooto bajaajta ayaa qaladaan xooggan waxay ka muujiyeen sar u kaca qiimaha shidaalka xilli dunida inteeda kale hoos u dhac xooggan shidaalku ku yimid ديدي 8 دور 5 8 دور شدال عقال وارك أنا قاري ما ودنا بتاج له ودناي ما تدا 7 دور صايش كذا شيء تمو تورته شيء تمن كلا باكي كي شدال وكبحاو واحد كيلو سويلها ورتمله marka halkan baaq waxa ugu dir lahay gobolka Banaadir qaasatan Mungaab iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan dhigi lahay shidaalkan raqiisan oo laga dhigo ganacsadana laga qabto waa sax shidaalka anaga weli qiimihiisu taagan yahay dhibaato aad u weyn aan ku qabnaa marka sheeg waxaa laga rabaa midaas anaga ma ahan dawladda inay ka hadasho ee tiraha ganacsatada la hadasho oo qiimo dhimis sameeyo ee dhahdo annaga ilaan waa shacab anaha moogtahay shacabkana wuxuu waxa ku yahay dawladdii oo inay ka hadasho ay tiraahdo ganacsatada la hadasho ee tiraahdo waxaan joojiya shidaalka qiimihii hadduu markii hore waxay ka cabaadayeen inuu sare u kacsan yahay shidaalka hadda dunida hadda hoos u dhacay oo annagana meeshii booskii uu taagan yahay ilaan annaga hadalkeena cid dhegaysaysa male laakiin dawladda hadday ganacsatada la hadasho waa laga dhegaysaa dawladda shidaalka marka koowaad haddaa ka hadlo culays weyn uu nagu hayaa alla kuma darnaado wixii aan ciyaalka iyo carruurta u geysan lahayn iyo nafteena ku difaaca lahaynaba shidaal ay nooga baabaadaa lacagteena khayr allah ku siiyo sidii maalin hore uu shidaalku markii uu gacanka Hormuz uu xirnaayay iyo si la mid uu shidaalku u taagan yahay wax isbedelana ma jiro alla kuma darnaado dawladda hadday dawladeena waxaan ka codsanaynaa ilaahay u dhaho shacabkeeda hadaan ahay oo inayn ganacsatada nalaga hadasho oo shidaalkan oo nalaga fargeliyo culays uu nagu hayaa ka hor dagaalka bariga dhexe qiimaha shidaalka halkii liitar suuqyada magaalada Muqdisho waxa uu ahaa eber dhibic 65 senti halka maanta uu yahay 1.18 senti taas oo ka dhigan 82% in sare uu kacsan yahay qiimaha shidaalku lama oga tilaabada ay qaadi doonto dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan isku dheelitirka qiimaha shidaalka iyo guud ahaan badeecadaha kala duwan ee laga soo dhoofiyo dalka dibadiisa